السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داود يال وحن هاي محمد فارس شري وحن رباه كنا ذيك جسوا قد بيو برامجيو تحناها أو أنت بدنا أنا كجها للدونا وحن أوما قعدري هبو يهال أبور سومالي بدن أما دلنا يرف رب بدن أما دل كان هاتر إنه جوجنا كينيا مركز فيرسو tira fara badan ayaa sanadba iskuulada ka soo baxa intooda badan waxay sheegtaan in ay shaqo la'aan baahsan ay jirto yes shaqo la'aan way jirtaa laakiin dhankay ka istaagay dhanaan ahayn ayaan mataqaanaa doonayaa inaan ka istaago waa tahay qofka marka uu shaqaysanayo laba nooc ayuu u shaqo tagaa waa inuu yahay skilled ama unskilled u yahay shaqada waa inay tahay shaqo professional oo qabanaysid inta badan dhalinyarta gobolka waxay daneeyaan oo aad iyo aad xil iskaga saaraan in ay helaan shaqooyinka white collar jobs la dhaho nin walba wuxuu doonayaa inuu xafiis fariisto xafiisyadii marka aynu fiirino marka tusaale ahaan haddii aan fiirino magaalada Nairobi aan fiirino oo kale intee iskuul baa ka furan magaalada Nairobi oo qofku macallin ka noqon kara good example ama dhahnaba 1000 school baa ka furan okay 1000 school meeqa macallin ayaa u shaqeeyay kartaa dhah ama dhahnaba 10000 oo macallin ayaa u shaqeeyay karta tusaale ahaan aan soo qaadano waata 10000 oo macallin ayaa u shaqeeyay karto marka intee wax baratay oo baahan oo macallimiina oo iskuulada ka soo baxdo oo koosaska macallimada ka soo baxdo waxa ka soo baxdo sanadkii 50,000 60,000 100,000 baa ka soo baxay inta 10,000 ee soo hartay xagee aadi karaan way de meel aadi karaan ma jirto dhanka kala fiirina marka tusaale ahaan haddii qofkan uu skilled yahay oo qof xirfad leh u yahay aan ka soo qaadno waxa uu bartay xirfadda ay tahay tusaale ahaan meeqa saloon ayaa ku taala magaalada Nairobi wala cadadna wala xisaabna okay marka in qofku uu saloonka barto iyo inuu macallin noqdo keeba shaqo degdeg ah uu heli kara noloshiisa ku dabari kara halkaasi waxa ka soo baxayso in qofka inuu saloonka barto ay maaragtay ii sheeg u wanaagsanta saloonku markuu waa xirfad waa tukaan aad samaysan karto oo aad xiran karto oo aad furan karto xilliga rabtana noloshaada iyo xaaladaadu wax badan ka bedeli karo tusaale ahaan dhakhtarnimad baratay intee dhakhtar ayaa magaalada Gaarisa ku taalo macnaha isbitaal aan iraahdo waxaan dhahaynaa 500 oo isbitaal baa ku taalo 500 isbitaal 500 dhakhtar bas ay u baahan yihiin laakiin Garissa teachers Garissa iraahdo KMTC meeqa dhakhtar baa ka soo baxayso ولا عددنا ولا حسابا لكن هذه دتكاس دخاتيرتا برانية أي بران لهايين تصالة أهان أي بران لهايين بابر تبها سيدا الله جرو أي بران لهايين أقل ميقا بابر باكو تالي مغالة غارس أما نيروبي أما نيفاشا أما وجير أما ميشا دون تبهات ولا عددنا ولا حسابا ويو قفكو نولوشي سوء الدبري كرا مركا مهمة دو معها in dadku aan wax barashada ka dhiirigelinayay waxba baran aan leeyahay waxa weeyo in skillka la barto hatta hadii aad macallinimada baratid oo skillka electricalka aad baratid electricalka wuxuu ku saamaxayaa in inta aad macallimadaadii aad ka gaaraysid ay noloshaada ku dabaratid amaba ay ku noqoto shaqo mataqaanay ku garab socoto oo markii 10 saac galaaskaad ka soo baxdid xaafadaas aad tagi kartid ama dukaankaaga aad furan kartid shaqooyinka electricalka aad qaban kartid maanta dunidu xagee u socotaa marka maanta dunidu waxay u socotaa skillka dhanka xirfadaha u socotaa in aad noolaatid waa ina xirfad aad leedahay xirfadihii marka aan sii dhaxgelinaa xirfadihii marka dhowr nooc baan u kala qaybinay waxaan dhahnaa waa technical and digital skills xirfado farsamo oo digital ah oo maanta caalamkan waxyaalaha mataqaanaa ii sheeg ka dhacayo amaba ku xeeran
la shaqayso ama la socoto ama la falqaadayso. Content creation and digital media waa haatan adduunka meesha hadda u socdo. waa in aad content creation aad noqotaa. hadda tusaale ahaan waxaan sameynaya waa content creation. barnaamijkan waxaan u magac darnay hibo iyo hal door baan ugu magac darnay. waa inaad adiga aad wax aliftaa, content aad samayso. content micnihiisu muxuu yahay? waa inaad fariisatid, aad fikirtid, soona tabisid wax aad leedahay waa unique, waa gaar, waa la gudbin karaa, dadkana waa la gaarsiin karaa. tusaale ahaan waxaad qaadatay platform social mediagaad meel ka furatay, TikTok baad furatay, ama waxaad furatay Facebooka ama YouTubeka. marka waxaad furatay channel aad kaga hadlayso oo keliya. tusaale ahaan in dadku ay shaqaystaan. marka waxaad samaynaysaa contentigaaga dhiirigelin baad ka samaynaysaa. waxaad follow up ku samaynaysaa nin big wato TikTok wato, ku kabaha tolo, ku macnaha ii sheeg sameeyo. dhammaantood noloshu way dabarayaan, waa inay shaqaystaan. content creation waxaad samaynaysaa aragti dadku aysan unique ah oo dadku aysan suuqa ku jirin ayaad alifaysaa ood samayn kartaa. macnaheedu ma aha inta badan waxaa aragnaa dad badan oo social media ku jiro oo aflagaado ugu jiro qaar socdaan aragnaa, qaar heesaan aragnaa, qaar heesadu saaraan aragnaa. still activity-gin way ku jiraan, laakiin income-na kama helayaan, waxbana ma sameynayaan. marka content creation ayaad samayn kartaa oo ah new color jobs. maanta new color jobs ka hadda jiro white color jobs bay ahaan jirtay shaqooyinka kale la qaban jiray. kuwan hadda waxay gaalada dhahaa waa new color jobs. waa shaqooyin cusub oo kalarkaagana nadiif u ahaanay. tusaale ahaan hadda guriga aniga dhex fadhiyaa, sariirteeda agteedaan fadhiyaa, waana correspondence baan sameynayaa. correspondence idinkaan idinla hadlayaa, boqolaal qofna way dhegaysanaysaa. internet will never forget balin. internetka ma forget garayna. marka cashiro taxalay noqon doonaan. marka waxaan dhahnay content creation kaas waa digital mediaga ayaad wax badan ka samayn kartaa oo mastagarayn kartaa. tusaale ahaan waxaad baran kartaa oo content creation ku samayn kartaa video editingka, video graphic designka, social media managementiga, and podcast production. inaad samaysid tabin aad samaysatid adigu aad leedahay. maanta inta TV-ga daawato iyo inta mobilka wax ka daawato waxa aad iyo aad uga badan inta mobilka wax ka daawato. waayo TV-gu wuxuu u baahan yahay inaad guri tagtid, fariisatid, kadibna mataqaanaa aad shidatid, aad daawatid. laakiin mobilkaaga, gurigaaga, gaarigaaga, meesha rabtid wax ku samayn kartaa. marka content creation-ka waa one of it baan dhahnay oo ah waxaan caawa qaadan doonaa cashirka anagu noqon doono ah in aad shaqooyinka noocaasa ay possibility-gu wanaagsan yihiin. waana fursado aad iyo aad u wanaagsan, dhaqaalan laga heli karo dal iyo dibadba. waa website and software development. inaad website-ya samaysataan oo website-ka asaga ah content-gii aad samaysay aad kusoo gudbisid. content-gaas marka muxuu noqon karaa? Udeva waxyaalo badan baad ku samayn kartaa. waxaad samayn kartaa Python, JavaScript baad ku samayn kartaa, koorar baad mataqaa dadka lacag kaga qaadan kartaa. wax badan oo aad ka samayn kartaa jiro. barnaamijyada ku tabin kartaa, xayeysiimo ku samayn kartaa, waxaad aragtiyood ku soo gudbin kartaa. macnaha dad badan baa kugu xirnaan karo, magac ku samayn kartaa, qof baa click to marmasa u taabto lacag kugu soo dhici karta. adiga waxay u baahan tahay adiga qaabka aad meesha ayada aad iskaga dhistid ayaad software-gana ayadana aad ugu samayn kartaa. marka shaqooyinkan hadda aan ka soo hadlaynay ee dhahnay waa technical and digital skills ka aan dhahnay waxay hadda gaalada u bixiyeen new color jobs. white color jobs baa yaan maqli jirnay, laakiin waa tan waa new color jobs. macnaha adduunkii waa wuxuu ka tegay macnaha waxyaalaha hadda laga shaqaysan jiray ka tegay, wuxuu u sii socdaa halkan ayuu hadda u sii guurayaa. cyber security waxaad baran kartaan cyber security. macnaha cyberka waxyaalaha cyberka ka socda. cyber waxaa la dhahaa aaladda internetka, xogaha amnigooda, ilaalintooda. waxaa ku qaadan karo hay-adaha isticmaali kartaa, laamo amni oo adigu gaar la samaysan kartaa. waxaad samayn kartaa data protection wax la dhaha samayn kartaa oo dadba datadooda u ilaalin kartaa. macnaha wax badan oo mataqaana cyber security-ga soo dhexgelaya ayaa mataqaanaa ii sheeg
ayaduna ku suurtagelin karto oo skillskaas ayaga ama taqaan wax ka ya ka caawin karta ama ku caawin karta ilaahay amarkiisa waa tahay IA literacy wax la dhaho waa hadda soo baxa IA literacy macnaha waa aqoontan artificialka ee lagu shaqeysto tusaale ahaan waxaan aragnaa hadda maanta muuqaaladaas nin baa iska qorta af Soomaali muqaal buu saaranaya isaar dhahaya instruction buu bixinaya soo guriga joogo wuxuu dhahaya madaxweynuhu hadlaya saa u hadlay af Soomaali ii samee waa loo sameeyay YouTube kiisu gashanaya wuxuu gashanaya TikTok kiisu gashanaya Facebook kiisu gashanaya Instagram kiisu gashanaya macnaha all those things buu gashanaya and then wuxuu sameynaya lacag badan ayuu ka helaya dadka hadda maanta aaladan digitalka lacagta ka helo macnaha ii sheeg waa dadka ugu nolosha fiican dunida maanta hadda arkayso wariyaasha caalamka waaweynaa ee TV-yada fariisanay dhamaantood hadda waxay soo guurayaan qaybta socialka ay soo guurayaan waayo waa touch and go waa taabo haddana faa'iid weeytan laakiin TV-yadii aad garanayso inta ka safarno aan tagayna Dhobley tagayna Kismaayo tagayna Harar tagayna Awaas aan tagayno wax aan soo duubeyna gaariga aan soo qaadan aan soo raacayna aan imaanayna Nairobi imaanayna kadib la fariisan leedad gareena la diri just waste of time bay noqotay macnaha ma sameynayso soo marka IA literacy-gaasi waa isna waa artificial kama taqaanaa hadda soo baxay waana qaabka digitalka ee aadka haatan dunida ay oga shaqeysanayso loona baahan yahay in dadku ay noqdaan kuwa fahmaan IA-ga fahmaan IA-gu waxba kuma bombooninayo wax gaar ah kuma sameeyay fikirkaagana ma qaadanayn wuxuu sameynayaa intelligence way macnaha xog tusaale ahaan dad tiraahdo daawadaas raba inaan cuno hergabka cuno wuxuu ku leeyahay ha daawadaas hergabka u fiican tahay laakiin waxaad ogaataa adigoo dhakhtar u tagay ha cunin buu ku dhahayaa that is it why because of hadduu ku dhaco cun od cuntid waad garan kartaa xaaladda meesha ay marayso so that data analysis macnaha waxaa weeye la socodka datada xogta tusaale ahaan kambaniyaa la shaqayn kartaa oo datadooda xifdin kartaa xogtooda la socon kartaa using tools of Excel kaad isticmaali kartaa SQL kaad isticmaali kartaa iyo informationka iyo businesska qof ama company ama shirkad ay wax badan ka qaban kartaa ka samaysan kartaa marka hibi iyo hal door weeye barnaamijyadanadan waxay noqon doonaa kuwa taxana waxaana kaga hadli doonaa wacyiga maanta dhalinyarada loo baahan yahay iyo meelaha ay aadayaan maanta waxaan ku soo qaadanay wax la yiraahdo digital skills kan ku soo qaadanay digital skills kana waxyaalaha aan ku soo qaadanay waxa kamid aha IA literacy-ga data analytics-ka iyo waxaan ku soo qaadanay cyber security-ga website iyo mataqaana software development oo kale content creation ma ku soo qaadan dhammaan shaqooyinkaasi waxa loo bixiyaan dhahnay new color jobs ba loo bixiyay waanigo Maxamed Faarax Shirax barnaamijyo noocan aan idin soo tabin doona waxaan ku codsanayaa page-ka inaad ii saartaan like follow-na ii soo sameysaan aad iyo baan idin kaga mahad celinayaa dhageysigiina iyo mataqaana ay sheela socodkiina waxaan idin soo tabin doonaa xog fara badan waxyaalaha meelaha aan rabno inaan gaarno aan ku socno waxa weeye in dhalinyaradeenna gobolka Soomaalida ama dunida meel walba Soomaalida ka joogaan in ay noqdaan kuwa xirfado yeeshaan tusaale ahaan dadka dibadaha aado shaqooyinka ugu badan ay qabtaan haddaad xirfad aad lahayn hadda garan kartaa waxa noqon karta mid waayo Mareykanka ninka iska lahaa dhakhtarka ama macalinka ka adiga marka inaad wax ka noqotid aadid buu adag waa inaad musqusha dhaqdaa waa inaad mataqaanaa parking sameysaa oo store ka shaqeysaa waa inaad guri xaaqdaa waa inaad nadaafada ka shaqeysaa waa inaad waardi noqotaa waa in mataqaanaa shaqooyinka aad adiga hadda halkan aad ku didanta ayaa xaga lagu qabanaya laakiin waxaan sameyn doonaa casharadana dambe waxaan ku baran doonaa in dadku Kenyaanka nala ah ee nala degan wadanka waxyaalaha hadda maanta xoogga ay saareen bartaan hadda fiirisid iskuulada technicalka ama TVET-ka ay wadankan ka furan iyo college-yada yaryarka iyo kuwa ka sii yaryar ee xaafadaha ka furan iyo sidii u dadaalayeen dadka ma maleysan kartid qiyaas haddii 6 bilood aad koorso yar ku dhigatid oo koronto ah qiyaas 6 bilood hadaad timajar ku baratid qiyaas hada 6 bilood sida guryaha loo nadiifiyo ku baratid qiyaas sida kuraasta loo nadiifiyo ku baratid waxa suurtagal ku ah inaad shirkado waaweyn ay lacag adag ku siin karaan shirkado weyn lacag ku siin karaan waayo waa wax loo baahan yahay gurigaaga ka soo qaad ugu dambeys adiga guriga aad deganta meeqa skills yaa looga baahan yahay tusaale ahaan
gurigaaga waxa usoo shaqo tago plumber nin la yiraahdo oo ah ninka mataqaanaa iisha ka shaqeeyo biyaha tubooyinka ku xiriira 2 gurigaaga waxa usoo shaqo tago ninka korontada ka shaqeeya usoo shaqo tago 3 gurigaaga ninka dhisa ee dhagax isdul saara usoo shaqo tago 4 gurigaaga carpenterka usoo shaqo tago albaabada ninka hagaajiya 4 5 gurigaaga waxa usoo shaqo tagay ninka hagaajiyay jingada hagaajiyay 4 gurigaaga waxa usoo shaqo tagay ninka tiles ka saaro 6 gurigaaga waxa usoo shaqo tagay ninka muraayadaha galiya gurigaaga waxa usoo shaqo midka gardenaga ah sameeyay muxuu ahaa garden ka sameeyay gurigaaga waxa usoo macnaha hadaa gurigaaga kali ku wado gurigaaga waxa usoo shaqo tagtay oo lacag ka qaadatay 20 qof baa lacag ka qaadatay 20 qof baa gurigaaga yaka oo different skills taa adi maxaa ku diiday marka in 20 ka ayaga saddex iyaga kamid intaad baratid aad qaad tusaale ahaan inaad gurigaaga rinji marisid waad garan kartaa waxaad u yeeranaysaa nin fundeed u yeeranaysaa laakiin inaad ringiga marisid waa course yar oo qaadan karto 3 months aad ku dhigan karto ama 2 months aad ku dhigan karto waxaana suurtagal ah in dhalinyaro badan oo maanta tahriibay ay dibadaha course-kaas rinjiga bes guriyaha la marinay ku aadi karaan ama ku aadi karaan haddii aad hotel samaysato kaba sii dano 40 qof waa ku soo shaqatayso oo khibrado kala duwan haddaad macnaha company samaysato the same laakiin kubali intuu adigu wada baran kartaa laakiin at least inaad ma taqaan ama 2 ama 3 ka baratid waa fair for you aad u mahadsan tahay dhageysigiina waa idin kaga mahad celinayaa anigu maxamed farax shan barnaamijka la socodsiinayay fadlan waxaan ku codsanayaa like-ta iyo share-ka iyo programka iyo boggan cusub ee hadda aan sameeyay inaad ila kicisaan oo kor ila geysaan aad u mahadsantiin jazakallahu khayr salaam alaykum